سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعن وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج gaar ah oo hadli doona xaaladda guud ee dalka Itoobiya. barnaamijka waxa ay kala qayb qaadan doono ilna falanqeyn doono Nuux Caaqil oo ishaba ku hayay xaaladda guud ee dalka Itoobiya. Nuux hadii aynu ku bilaawno waxa ay warbixin naga siisaa xiisadii dagaaleed ee laga dareemayay xadka ay wadaagaan labada dal Suudaan iyo Itoobiya iyo halkaasi warbixin hadii aan naga siisid bal nood maasan tahay jaamacadii hadii aynu eegno dhankaas iyo labada xad ee dagaalada ka horsanaa xadka u dhaxeeya Itoobiya iyo Suudaan waxa la arkayaa in Suudaan ay wado dandaansi sida aynu wararka ku helayno sababtoo ah Suudaan waxay ciidamo aad u tir badan ku soo daabulaysaa xadka ay Itoobiya la leedahay xadkaasi waxaynu ogeyn in dagaalo dhowr ah ay ka dhaceen isbuucigii la soo dhaafay dabcan dagaalada halkaasi ka dhacay waxa la sheegayaa in ciidamo aad u tir badan oo dhowr 20 gaarayo in ay kooxdan Suudaan ama ilaha dawladda Suudaan ay kaga dhinteen dabcan halkaasi dagaalo ayaa ka aruursan walow ay dawladda dhexe ee Itoobiya ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale afhayeenkooda uu beeniyay arrinkaasi taliyaha dabcan taliyihii Itoobiya waxa uu dhahay halkaasi waxa dagaaladaasi ka wado maleeshiyadu isku ekaysiinaya ayuu yiri ciidamada Itoobiya kuwaas oo ku sugan dhankaas iyo xadka dabcan dagaalo ayaa halkaasi ka aruursan walow ay maalimihii hadda la soo dhaafay uunan dagaal ka dhicin isbuuc u dambeeyay dagaalada halkaasi ka dhacay waxa la sheegayaa in ciidamo aad u tiro badan ay labada dhinac kaga dhinteen labadani dal waxa ay isku haystaan ayaa ah in ay xadka halkaas u dhaxeeyo Suudaan waxa ay sheeganaysaa in dhul balaadan uu kaga maqan yahay wadanka Itoobiya halka dhanka Itoobiya iyaduna ay sheeganayso in dhul uu kaga maqan yahay Suudaan dabcan markii la eego Suudaan waxa ay ku fadhidaa dhul Itoobiya ay leedahay oo weyn halka Itoobiyana ay iyaguna u dagaalamayso si dhulkaas u soo dhaciso labada dhinac xiisada ka taagan waxa la soo sheegayaa in wadamo dalalka caalamka qaarkood iyo kuwa gudaha ah ay ka qayb qaadanayaan Suudaan waxa ay garab ahaan ay ka helaysaa Masar oo aan ognahay in wabiga Nile ee Itoobiya biyo xireenkii lagu sameeyay in ay halkaasi ay iyada xiisad ay ka taagan tahay dabcan dagaalada halkaasi ka aroorsan ama dandaasigan ay Suudaan ay sameynayso waxa la oran karaa waa wadamo qaar ayaa dawada ka xiriixay maadaama hata wadanka Itoobiya uu ku jiro dagaal oo TPLF ay kula jiraan ciidamada militariga Itoobiya iyo sidoo kale ra'iisul wasaarihii iyo dhamaanba ay halkaasi ku wada mashquulsan yihiin guud ahaan halkaasi xiisad ayaa ka aroorsan hadii halkaasi ay dagaalo ay ka bilowdaan waxa la is orani karaa dagaalkaas wuxuu noqon karaa dagaal caalami ah oo laba wadan ay ka dhaxeeyaan dabcan xiisada halkaasi ka taagan waxa bumbuunaya ama wado ama dandaansigan dareenayo in ay Itoobiya ay dagaalo ay ku qaadaan rabo waa Suudaan halka Itoobiyada ay iyadu mashquulsan tahay ciidamadooda iyo sidoo kale taliyaashooda ay guud ahaanba ay ku mashquulsan yihiin dagaalka waa tahay hadii aynu eegno dhankaas iyo wasaaradda warfaafinta ee dalka Itoobiya waxay maanta soo bandhigtay iyadoo muujinaysa sawirro u muuqda in dhalinyaro ka soo goostay TPLF oo lagu soo bandhigay dhankaas iyo dawladda Itoobiya soo dhibeen ayadana wax xog ah nooga haysid maxaabiis aad u tiro badan ayaa waxay isku soo dhiibeen dawladda dhexe Itoobiya maalimihii u dambeeyay dabcan maxaabiistaasi dawladda dhexe Itoobiya waxa ay ku sheegtay in ay yihiin maxaabiis ka soo goosatay dhankaas iyo kooxaha jabhadooyinka ee halkaas ka dagaalamayay ee deegaanada Canfarta iyo sidoo kale Axmaaradu waxa la soo sheegayaa ciidamada aan iraahday ka soo goostay jabhadooyinkaasi in ay u badan yihiin dhalinyartaas waxa lagu sheegay in ay yihiin dhalinyaro Tigray sidoo kale oo leeyahay qaarkood ka soo goostay waxaana ka muuqato in ay baaqi ahaa in ra'iisul wasaare Abiy Ahmed uu baaqay jabhadooyinka ama Tigrayga in ay isu soo dhiibaan ciidamadooda sidoo kale ay hadhow dambe ay baxar ay ku galin sidoo kale hubka ay dhigaan waxa la arkayo ciidamo qaarkood waxa lagu dhahay dagaaladii u dambeeyay ayaan ku qabanay yiraahdeen dawladda dhexe halka inta badan dhalinyartaasi oo da'dooda waliba ay tahay da'da 20 sano wax ka yar ama in la dhan ay yihiin ayaa isu soo dhiibay ciidamada dabcan ka soo goostay kooxaha TPLF waa ciidamo aad u tiro badan waxaana loo qiyaasay kumanaan in ay gaarayaan
dhowr kun dabcan ciidamadana maantana waxaa soo bandhigtay dowladda dhexe Ethiopia sawirro baraha bulshada ayaan wareegayay marka aynu eegnay waxaa halkaasi ka cadaatay in dhalinyartaasi ay yihiin dhalinyaro aad u daayar walow ay iyagoo dhalinyartu sheegeen in dagaaladani ay kasoo qayb qaateen in ay jabhadooyinkan ay ku qasbeen sidoo kalena iyaguba la soo qafaalay oo dhankaasi dagaalada iyo hoob loo dhiibay Tigray waxay oogeen in xataa ay shacabkooda u dhiibayeen hoob sidoo kalena ay dhahayeen gala deegaanada sidoo kalena aan xoreysano wadankeena halkaasi dowladdu maalimihii u dambeysay waxa ay ka muuqato in ay guulo waaweyn ay kasoo hoyinayeen dhankaas iyo dagaaladii maadaama ay maxaabiis aad u tiro badan ay soo bandhigeen waa tahay haddii aynu aadno dhankaas iyo dagaalada ka socda waqooyiga dalka Ethiopia iyadana maanta waxaa lasoo sheegayay dalka Ethiopia gaar ahaan ciidamada militariga Ethiopia in ay sheegeen inay qabsadeen magaalooyin istiraatiiji ah oo ay ka qabsadeen ciidamada TPLF iyo mucaaradka iyadana dagaaladaasi iyo qasaarihii iyo goobaha la kala qabsaday iyadana haddii ay noo sharaxday dagaaladii u dambeeyay dowladda dhexe Ethiopia ciidamadoodu waxay sheeganayaan guulo aad u weyn waxaa haatanba ay magaalooyinka ay la wareeyeen kamid ah Lalibela iyo sidoo kale deegaano aad u hoos yimaado iyo dhankaasi Shawrobe Milli iyo deegaano hoos yimaado dabcan labada dhinac waxa ay sheegeen haddii aan ku hormaro TPLF waxay sheegtay in ay iyadu ay si iskeeda ay magaalooyinka uga baxayso magaalooyinka ay ka baxeen waxay ku sheegeen in ay tahay xeelad dagaal dhanka kale ciidamada militariga Ethiopia oo haatan baqeer kamid ah uu hogaaminayo Abiy Ahmed waxaa la soo sheegayaa in ay dagaalo kaga saareen magaalooyinkaasi iyo deegaanadaasi dagaaladii u dambeeyay waa run TPLF way ka baxday goobooyinkii ugu muhiimsanaa oo ay deegaanada Canfarta iyo sidoo kale deegaanka Axmaaradu ay ka haystay haatanna waxaa gacan ku hayntooda gacanta ku haya ciidamada militariga Ethiopia Abiy Ahmed mar uu ka hadlayay telefishinka Ethiopia waxa uu sheegay in ay dagaaladii u dambeeyay ay kaga gacan sareeyeen kooxda TPLF sidoo kalena ay magaalooyin istiraatiiji ay kaga qabsadeen ra'iisul wasaaraha waxa kale uu sheegay deegaanada ay ka qabsadeen inay yihiin deegaano gaarayo dhowr iyo 30 halkaasina ay ciidamada militariga Ethiopia hadda guud ahaan bay ku fidsan yihiin deegaanadii ay hore u haysteen kooxahani TPLF iyo OLA afayeenka TPLF iyo sidoo kale saraakiishooda ugu sarreysa mar ay ka hadlayeen in ay bedeli doonaan xeelada dagaal ay kula jiraan dowladda dhexe Ethiopia ayaa waxaa la sheegay in ay qorshahani in ay magaalooyinka gabi ahaanba isaga soo baxaan in ay iyagu ku taliyeen sidoo kalena ay tahay xeelad dagaal sababaha ay uga baxeen lama sheegi karo iyo waxyaabaha ay ka damacsan yihiin kooxahani TPLF isaga huleelada ay isaga huleelayaan deegaanada Axmaarada iyo Canfartu balse waxa huwa in Tigraygu ay dib dambe ay u qabsan karin in magaalooyinka ay hore haysteen oo istiraatiijiyiinka ahaayeen iyo sidoo kale deegaanada ay haysteen sababtoo ah haatanba ciidanka militariga Ethiopia ayaa heegan ku jiro kuwaas oo mar waliba ka soo horjeeda kooxahani TPLF waxay u egtahay in ay dib ugu laaban doonaan dhankaas iyo deegaanka Tigrayga oo halkaasi horay ay kaga yimaadeen guulihii u dambeeyay ee ciidamada militariga Ethiopia ay gaareen ra'iisul wasaare Abiy Ahmed waxa uu ku tilmaamay in Ethiopia guud ahaan baan laga guuleysan karin balse ay iyagu ay jabi doonaan kooxahani TPLF iyo wala iyo dhammaan jabhadooyinka mucaaradka waa tahay saaxiibayaal halkaasi ayaan kusoo gabagabeynaa barnaamij gaar ah oo hadlayna xaaladda guud ee dalka Ethiopia tan iyo kulantideena tan xigta waxaa idin leenahay sidaas iyo amaana Allah